awada fursad weyn ay tahay nin dawladda taageersan oo waliba si indha la'aan u taageersan iyo nin dawladda si indha la'aan uga soo horjeeda inay seestaan marka waa ciyaartu waa kulushahay waxaan rabnaa horta marka hore duqbilow dawladda waa la taageeraa ilka casaqays waa salaameynaa saaxiibada qaaliga halkaa naga daawanaya dhammaantood salaan qiimo leh wixii markaa su'aalahayna ka dambeeyaan dabcan wixii kaftan waa gudageli doonaa odayga taraagu wadaa waqtiguu ku yaryahay New York iyo Ohio iyo Virginia iyo kusay kala gooshaa waqtigiisa qaaligan waa u mahadcelinaynaa duqbilow dawladda farmaajo dhowr su'aal rabaa inaan ku weydiiyo intaa watana dabcan haddii su'aal kugu soo dhacdo si aysan kaaga dhumin adna way weydiin kartaa horta madaxweynaha Soomaaliya waqtigii la doortay duqbilow awad wax badan aan kaa weydiin rabaa madaxweynaha Soomaaliya wuxuu noqday qofkii ugu taageeraha badnaa raas Kamboni ilaa raas Caseer ninka ragga guushiisa waa la siiyaa ma garad ma jirin madaxweyne saas loo taageeray xasan sheekh saas loo taageerin waxa sidaas loo taageeray Sheekh Shariif Abdullahi saas loo ma taageerin maxamed siyaad bar taageero noocaas ma jiro wala nidaamkiisa uu kan Afrika ugu fiicnaa ahaa haddana taageero noocaana farmaajo ma helin madaxweyne sidaas loo taageeray oo yiri ra'iisul wasaare iga fiican baa imaanayo isna ra'iisul wasaarihii ugu fiicnaa dabcan dooqiisa ka ciyaaray hadda in bulshadu ay qaati ka joogto duqbilow taageerahada waa ii gooni tan waa dhaxdhaxaad in bulshadii amniga loogu fashilmay bishaarka ciidamada in lagu fashilmay ballamihii inay ka baxeen inaan shabaab lala diriirin dadkii waji kale ay madaxweynaha u yeeshay maxaad ugu fasiri kartaa adiga horta waa mahadsan tahay nin walbana fikirkiisu hadlaya dadweynaha waxaan rabaa inay horta wax yar fahmaan anigu aqligaygaan hadlaya iyo fikirkayga iyo taageernimada iyo xaq baa u leedahay su'aasha li weydiiyay qaabka ay jawaabteeda aniga ila noqon karto dad badan oo fikir rahay ama dawladda wada taageerno waxa laga yaabaa qaab kale oo sida ka duwan inay uga jawaabi lahayn wanta dawladda Soomaaliya taageero badan bay heshay madaxweynaha wuxuu ballan qaaday inuu keenayo ra'iisul wasaaraha isaga ka fiican intii uu ballan qaaday way dhacday taageeradii dawladda loo hayay wali aniga fikir ahaan waxaan aaminsanahay inay laba jibaarantay oo saddex jibaarantay oo taageeradii sii badatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu madaxweynaha keenay waa ka duwan yahay ra'iisul wasaarayaashii horeeto ee dalka soo mari jiray nidaamka ay hadda ku shaqeeyaanna waa ka duwan yahay nidaamka horeeto ee dalka looga shaqeyn jiray tusaale ra'iisul wasaaraha hadda dalka la keenay iyo ra'iisul wasaarayaashii ka horreeyay markaan isbarbar dhigo anoonan midna soo magacaabin laakiin aan magaca ku dhufanayo ra'iisul wasaare xasan cali khayre waxqabad ku leeyahay xukuumaddiisa waa loo madax banaaneeyay shaqadiisuu qabsadaa waxaa dhacday inuu wax dalka ku soo kordhiyo moogayo waddanka waxba kamuusan dhimin sida kuwii horeeto loogu eedayn jiray inay badgateen inay dalkii xuduudihii bixiyeen inaanan magaranaysaa aysan dhaafin xafiiskooda laakiin ra'iisul wasaarahan waxyaabaha uu dalka ku soo kordhiyay waxaa ka mid ah hooyooyin badan aabbayaal badan oo carruurtooda xabsiyada caalam ku jiray yaa uu ra'iisul wasaare xasan cali khayre ka soo saaray waxyaabaha uu farmaajo kaga fiican yahay ra'iisul wasaarayaasha hortan uu kaga fiican yahay taas weeyaan waxaan rabaa duqbilow ra'iisul wasaare wuu wanaagsan yahay markay ummad leedahay ama madaxweyne wuu wanaagsan yahay markay ummad leedahay ummaddu waa in علشان صوماليا مريكان كجوتا مانتا مركي قف صوماليا اي كسو دعدو لبا عرين با كسو دعدو صوماليا وادل امني ان كجرين صوماليا وادل باهن لكن مريكان كوكو سو دعدو صوماليا حفيظ قروح بدل رئيس الوزراء ومليهي سي وناكسن رئيس الوزراء ومو هلا سيدا اكترد عمل مو هلا امنيغا مد كووان امنيغا رئيس الوزراء طبعا صغير ولا كبير ادبو اوغتahay oo wadooyinka waa la xiray taa xal ma aha amni ma jiro Soomaaliya qof moog ma laha koow baahi ma jirto ciidankii u shaqeynayay dhididkooda la leeyahay wuxuu ra'iisul wasaaraha ku wanaagsan yahay oo aan anaga arki karin adigu arki kartaa ma in hadaan kula kaftamo xafiiskiisa inuu quruxsaday oo ra'iisul wasaarayaasha hore ka xafiis qurux badan yahay ma in ballamo uu sheegay sida inuu suuqa xoolaha iyo soos tagi doono dadweynaha dhex tagi doono ma in aktar amal loo hadlaa wuxuu ra'iisul wasaaraha ku wanaagsan yahay oo dadka aad u sheegi kartaa duqbilow amni ma jira wasiirka amniga waa taagan yahay oo macasilayo ganacsi baa kala dhaxeeya maxaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ku taageeri karnaa baahi baa jirta amni daraa jirta wax oo at least la taaban karo noo sheeg oo awada xataa anigoo mucaarad ah ra'iisul wasaaraha ku taageeri kara ama madaxweynaha waa maasanta hadda marka hore tan wax wanaagsan baa ku sheeg mar labaadna qodobada aan ra'iisul wasaarahan iyo madaxweynahan ku taageeri karnaan mar labaad kugu cilay waxaan rabaa inaad si fiican dhageyso dad badanna waa dhageysanayaan
رئيس الوزراء حسن علي خير كما أورن حفيزكي ساقرحون أما ساقرحون أما وأكثر أما واتور مورن لكن وحكوش شيء وحقبض لتاوكره رئيس الوزراء حسن علي خير مدة أغير أنا كنت أغير كرنو شعب كالصوماليين كنت أغير كرام وحاول قف قال حقيرة موناكسن هو يوين صوماليين اللي ندل كان نجيب كهل لنا اللي ندل كان إيا مدحنا كهل لنا هو بابليك ووكر أن أدورنا إني نوسقيان ما هنا المرول مقرس هاي اللي دعايدين يا أما وحلقة ربا مستقسين وحقرب لما هو يوين كي دورتي مسؤوليات صارتي ويلاسودي دغالكي سوكيه iyo dhibaatadii dalka ka socotay uga soo carreen in adoo Cabdiqaadir Booski yaano duqbilow aan ka badbaadnay in maanta aan America taraa ku wataadna Yurub maanta ku raaxaysanay kuwaana ku raaxaysanin oo magafe iyo xabsiyada caalamka ku xirnaa oo ahaayeen looma ooyaan lawyer iyo dawlad u dooda aysan jirin markuu xukunka qabsaday ma uu safriisan xafiiskiisa sidii looga bartay rag hore wuxuu bilaabay inuu asaga iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda intay wareegaan in hooyooyin Soomaaliyeed oo ilmadii ka dhamaatay caruurtoodii ka samray inuu caruurtoodii oo nool intuu dib ugu soo celiyay hooyooyinka ilanta ka tiray waa qodobka ugu yar ee uu qabtay khayre ama farmaajo ay qabteen magarad waa qodobka ugu yar weey haddaan sii daba dhigo adoo maasan halkale haddaan sii daba dhigo musuq maasuqa dalkanaga meeshuu marayay dhaqaalaha magaraysaa la musuq maasuqa dalkanaga meeshuu marayay qof walba oo Soomaali waa ogyahay waana la socod qof walba oo damiir Soomaaliyeed ama Soomaali meeshuu marayay uu la socod dhageyso maantana heerka dhaqaalaha naga uu marayo iyo gorgortanka aan kula jirnay in deentii ay Soomaaliya lagu lahaa ee dawladahan iyo dawladihii ka horreeyay ay qaateen in maanta laga cafinay marayso waa hool khayr iyo farmaajo keeneen yaani kiri karnaa duqbilow waxaan rabaa jawaabaha inay koobnaadaan su'aalo badan aan qabaan moogta adna su'aalo badan qabi doontaa dabcan jawaabahan oo ku koobi doonaa in hooyo laga quslisiiyo iyo hooya loo adeegay iyo waa jawaab kale hadda dabcan hadalkaaga kama helin anigu waxaan rabay amnigii xasan sheekh uu ku fashilmay ayaa lagu guuleystay in laga hortago shabaabka jawaab noocaas ka rabay ciidankii mishaarkooda way qaataan waqtiga xasan sheekh ma qaadan jirin ila isbedelka cusub aan rabay waa ka la ah ilaa hadda amni in la sugo muhiimadda Soomaaliya ee leedahay hooya la raali galiyay iyo hooya garka laga qabsaday iyo ma aha Soomaaliya hooya walba wiil leedahay kaasa raali galin kara amni ayaa rabay amnigana waa ka boodday waa ka mermertay number 1 labo qaraxyadu maalin walbay dhacaan waqtigii xasan sheekh hadda dib ugu laabano aniga xasan sheekh ma taageerayo laakiin example ugu dambeeyay waa dawladda ugu dambeysay way qaraxyadu asbuuc way dhici jireen mar bil 2 jeer 3 jeer ma dhici jirin ku dhihi maayo amni wali ma jirin Soomaaliya wanaagsan laakiin hadda qatartu way ka badato maalin walbay dhacaan war ma ra'iisul wasaaraha farmisoonkiisa qaldan yahay mu wasiirka amniga fashilan laamaha amniga miyaa shabaab la shaqeeya warka iyo cadeen dadkan u cadeen waxaa nimba meel bay kaga dhigan tahay baasha adiguna anigu dhiiga iga dhigan tahay dhiiga walaalaheen daadanaya iga dhigan tahay su'aasha haddaad weydiisid fiiri waxaan rabnaa inaan isfahanno haddaad idhihi lahayd war amniga iiga warran iyo maxay qabteen baad igu tiri bal waxaad su-aashaada waxay ahayd haddaan khaldana shacab badan baan dhegaysanay waxaan rabaa inay fahmaan adnaa fahmi su-aashaada anigu sidaan bointiga u fahmay waxaa weeye ama ay abaarayso war khayre iyo farmaajo maxay qabteen ama ummaddan ay ku soo kordhiyeen oo la taawan karo waxaan kuu sheegay qodobo la taawan karo hooyada wax la deynaya ma hooyadu waa waxa loo shaqeynaya weeye khayre waa public worker farmaajana waa public worker adiguna inaan wadada ku saxno waa loo baahan yahay anna inaan taageero waa ku saxan adna inaad wadada ku saxdo waa loo baahan waa dhegaysta waa qodobka amniga markaa si toos ii weydiisoo tiraahdi war qodobka amniga raggan maxay ka qabteen jawaabteeda oo amniga quseysaan ka hadlaya taayada haddaan weydiis haddaan kaaga jawaabaya dhigayso Soomaaliya meeshay ka timid cid walbeeto oo Soomaaliya way ogtahay meesha ay ka timaaday iyo meeshay maanta marayso cid walba oo Soomaaliya way la socotaa waxaa soo marnay ay dawladdan ay jirtay isla dawladdan administrationkan macnaha maamulkan uu jiray oo ku meel gaar ah oo xasan macnaha ninkii la oranayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu madaxweyne ka ahaa oo madaxtooyadu u jireen 3 kiiloomitir qolooyinka al-shabaab maantana meesha al-shabaab u jirto madaxtooyo iyo muqdisho waan ognahay
amniga caasimadda anaa kaaga dambeeyey muqdisho maalin dhaweyd anaa muqdisho maalin dhaweyd kaaga dambeeyey dhex lugeynayo dhex socdo caasimadda muqdisho maanta waxaa weeye boqolkiiba 80 waa ka fiican tahay waqti hore la soo dhaafay meeshii taagnaan jirtay iyo maanta meeshii taagan tahay waa kala duwan qodob ii kaali meesha waxaan rabaa bointiga jawaabtaada inaa heshid baan rabaa iga soo dhexgelin kan haddaad si sax uga jawaabid duqbilow oo soo laabana maatadan maya qarax baa dhaco anaa waan kula qirayaa qarax baa dhaco hooyooyin iyo aabbayaal iyo carruur iyo dad Soomaaliyeed baa inooga dhinta maalin walba qaraxa asaga ah ee dhaco baabuur baa qolo fulayiine iyo argagixisada fuliyiinta intay gaari ku soo xiraan ama noloshooday biimeeyaan ama meelaan la arkayn intay dhigaan bay rumuudka trool ku qarxiyaan taana Soomaaliya iyo xamar iyo muqdisho anigu waxaan aaminsanahay inay kala siman tahay Washington DC iyo New York iyo Boston baa hadda ka hor la qarxiyay haddii ma garanaysaa qarax la qaban karo oo laga hortegi karo oo markaas aan qolooyinka muqaadaraadka aan la soconno qarax ismiidaamine New York baa laga badbaadin lahaa diyaaradihii iyo World Trade Center la qarxiyay ta qaraxa muqdisho ka socdo waa isla qirana wuu jira qarax waxa wadana waa argagixisan naf la caari oo tabartoodii ku soo koobatay inay wax qarxiyaan amniga caasimadda markaan ka wada hadlaynaa aniga muxaafad baan adna mucaarad baa tahay aniga boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay inay caasimadda muqdisho tuug gacmeed iyo tuug wax dhaco iyo isbaare inaysan maanta muqdisho dhex oolin laakiin argagixiso sidee doontaa ku soo gashay laakiin baabuur qarxinaysa waa jirtaa jawaabtaas taasaan ku siinaya aniga duqbilow waxaan kaa codsan lahaa marka hore maadaama kumanaan kun oo qof ayna daawanayaan anigu su'aalayn inay nuxur leeyihiin jawaabtaada inay nuxur leedahay horta waxaan kaa codsanaa adiguna markaa su'aal i weydiin doonto waa arki doontaa 30 second ayaan jawaab ku soo koobayaa si hadafkeena kale aan u gaarno kuma dheeraanayno qodob haddii waa maxay galaas aan dhahno ana lagu shubtaa bakeeriya lagu shubtaa that's it waa dhalo iyo caag ma rabno ma ku qanacay mise ma la ku qancin jawaabaha kuma qancin maadaama way dheereed waxaan rabaa qarax wuu dhacay horta madaxtooyada waxa ka qaldan Soomaaliya waa iga dambeysay laakiin inaa kaaga xog ogaalsana laga yaabaa madaxtooyadu dawladda farmaajo ma xureen tan Xasan Sheekhna ma xureen tii Sheekh Shariif laga xureeyay magaalada Muqdisho Xasan nabadu u imaaday faraha way ka baxday waqtiga Xasan Sheekh wax yar ma imaad fiiri dhageyso raalno kuma oranin farmaajo xureey Xasan baa xureeyo kuma oran waqtiga naga waayaha Soomaaliya iyo Muqdisho meeshay marisay ba ku sheegay Xasan Sheekh Maxamuud iyo farmaajo iyo ninkii oran la oranayay Sheekh Shariif meeshay u jirtay madaxtooyada al-shabaab u jireen iyo maanta meeshay marayaan baan ku yiri kuma oran cidaas xoreyso okay qaraxyadu sidoo hore ma ka badan yihiin mise waa ka yar yihiin intaas marka iga jawaab qaraxa muqdisho ka dhacay qaraxa muqdisho ka dhacayo waxa ilaa baan ku dhaashay dad baan daawanaya Soomaaliyeed maya qaraxyadu waqtiga Xasan Sheekh isla qirno bas that's it qaybaha kala u gudbi karna hadda isla qirna inuu qaraxyada badan yihiin kow inay badan yihiin waa isku raacnay ya fiiri maya okay ya fiiri qarax inuu muqdisho ka dhacay baa isla qirnaa laakiin xisaabta Xasan Sheekh Maxamuud qaraxyadiisii iyo kuwa hadda jiro anigu duqbilow hadda ay tiraa mucaaradka ka waran aniga xumaantooda iyo samaantooda waa ku sheegaa mucaaradka lama xishoonayo hooyaday ma dhalin dalkan Soomaaliya nugu weyn anaga ina faat usman suuday qeerre iyo Cabdiraxmaan Cabdshakuur iyo Xasan Sheekh waxba nooma soo kordhinayaan dalka Soomaaliya ayaa number 1 noo ah waxaan rabnaa inaan falanqeeyno waxa hadda jiro haddaad mucaaradku ay weydiisan kama gaban doono wixii xaqiiqo jirto dabcan ilaahay hortiisa waa ku sheegaya cidna ma difaacayo waa ku weydiin doonaa insha Allah wada haye waana ka jawaabi doonaa inta karaankeyga waxaan rabaa marka waa isla qirana in amni jirin ama ha yaraada qaraxyadu ama ha badnaada waqtigaas muhiim ma aha yaad dusha ka saaraysaa nin siyaasi ah tahay nin dalka Soomaaliya ka yimid baa tahay mar dhow nin xogaal baa tahay qurba joogto marka loo fiirsho nabad sugid buu dalka leeyahay boolis buu dalku leeyahay wasiir amni buu dalku leeyahay military buu leeyahay ciidan xasilin la iska badaa waa burbureen adigu dusha ka saar hadii lagu yiraa amni darada dalka ka jirta hadaarta madaxweynaha ra'iisul wasaaraha difaac yaa saar leed cawad dhageyso ma qasabta wala baqla sima si fiican baa ku maqla horta waa runta anna meel ban difaacaya adna meel baad ku socotaa jawaabta ari aan bixinayo horta anna jawaabaha isiin doontid inaan ku qanco waajib anna kuwa ku siinayo
inaad diido oo laga yaabaa inaad ku qancin oo laga laakiin dadka dhageysanayaan maskaxdooda wax ka bedelay naadiyad okay waa sax anigu su'aalahaadi weydiisay waxaan rabaa inaan si loojiga oo IQ-gayga maskaxdayda aan kor u qaraacayo inaan uga jawaabo ma sha Allah taas su'aasha hadda weydiisay ee yaa dusha ka saaraysa amni darrada dalka ka jirto iyo dhiig daadanayo amni darrada qof baa qaadaya mas'uuliyadeeda adduun iyo aakhire mas'uuliyadda dadka naga dhimanaya waxaa iskale qolooyinka argagixisada al-shabaab laakiin waxa u fududeynayo oo dalka qalalaasa siyaasadeed geliyay madaxdii ka horeysay ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud maalinta uu dalka ku soo noqday ee uu muqdisho cagaha soo dhigtay iyo horta dhibaatadani bilaabatay in ciidan ama magaranaysaa shaati kale loo geliyo ama qaraxyada iyo baabuurtu ay bataan ama magaranaysaa aydiyo iyo sharciyo aan magaranaysaa markaasi meel ka yimaadaan la garan in jagboontyada lagu soo dhaafo maalinta madaxweynihii ka horeeyay uu dalka yimid bay horta bilaabatay macnaha qayb uu ka qaadanaya inkastoona mas'uuliyadda dhiiggaana dhehna saadaadii laakiin maalintii uu dib ugu soo noqday caasimada ayaa horta dhibka bilaabatay xasan sheekh mataliya boolis baa mataliya military baa wasiir amni baa waa qof shakhsiya muxuu bilaabi karaa muxuu irideyn karaa muxuu baabuur qof wata control karaa muxuu dhagxaan meel ku dhigi karaa muxuu bilaabi karaa awood nuucu leeyahay xasan sheekh sheeg okay marka saa u dhigno su'aasha jawaabteedii waa ku sidaa marka saa u dhigno muxuu bilaabi karaa iyo dhagaxan macnaha qof shakhsiya madaxweyne hore iska ahaan jira dalka ku soo laabtay oo dawladda hadda jirta nidaamka hadda jirana cadowtooyin kala dhaxayso waxaan rabaa inaan isfahandaaniya adiga haddii dood inaan ka dhigno mar waxaan rabaa su'aasha weydiisid jawaabta aan ku bixiyana uga socon laakiin qasam maaha okay qasam maaha soo inaan ku qancay in kale waaya waa ka gudbina waaya wax yar halkaa ku yar kariya dhageyso wasiirka amniga mudane islow iyo ra'iisul wasaaraha iyo dawladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo mudane maxamed cabdullaahi farmaajo inta karaankooda ah awoodooda ah ee loo igmaday ee mas'uuliyadda loo saaray waa shaqeeyaan har iyo habeen madaxweynaha iyo wasiirka amniga waxay kala tagaan marka ay tahay salaada subax marka la aadaamayo aadaanka ugu horeeyay kala galbadaan nin walba gurigiisa aadaan maxay isku sheegaan waxay ka shaqeeyaan danaha qaranka ka shaqeeyaan midna waa danaha qaranka waa waxa ayaga loo igmaday weeye inay ummaddan u shaqeeyaan inay ummaddan magaranaysaa ay dhibaatada haysato ee mucaarad iyo al-shabaab iyo argagixiso iyo danaha dalalka shisheeye ku hayaan inay ka saaraan iyo salaada subax marka la aadaamo ku kala tagaan danahaas ku kala tagaan oo isu sheegaan habeen iyo maalin miradal danaha isku sheegaan ilaa salaada subax miradalkeeda la'nahay haddii marba nabar 4 wadada Makka al-Mukarrama halkaas wada amnigeeda la sugu laayahay danaha isku sheegaan kulli u maleyn maayo mid Soomaali inuu yahay ilaa hadiiba amniga lagu fashilmay wixii la isku sheegay 2 sano dhigta la isugu sheegay waa iska xan